السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولموج ميديا uga barateen halkan in idinka soo gudbiyo waa rarkii warbixinada ka dhaca dunida kuwooda ugu xiisaha weyn waa maalinimo axada 7 bishii 6 2020 waxaanu warkeena ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo shalay furay kalfadhigii toddobaad ee golaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa madaxweynuhu waxa uu halkaa ka jeediyay khudbad taabanaysay dhinacyo badan tan iyo markii ay xilka uu qabtay wixii u qabsoomay dalka taasoo markii uu madaxweynuhu dhameeyay khudbadiisa uu ka soo baxay hoolka ay kaga hortageen kooxda bambiga qaranka iyaga oo u tumaya muusiga qaranka taasoo ay muujinaysay in ay weli dadku aad iyo aad u taageersan yihiin dowladda haatan jirta ee nabad iyo nolol iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aad iyo aad wax uga qabtay ayay leeyihiin dalka waxaan idiin haynaa oo kale daawadayaal dalka Mareykanka waxaa weli ka sii socda mudaharaadyo aan kala go' lahayn taasoo ay ka soo biirayaan mudaharadaasi dad magac leh duqa magaalada Washington DC Maria Bowser iyo shaqaalaha daryeelka ayaa waxa ay ka qayb qaateen dad badan oo mudaharadayaal oo halkaasi ku soo banaanbaxayaasha waxay ku mudaharaadayeen cunsuriyadda in ay soo afjaraan waxa ay tahay dibadbaxayaasha ayaa isugu soo ururay barxadda hore ee Lincoln Memorial waxa ay qabteen dhismaha iyaga oo aamusan 8 daqiiqo iyo 45 ilbiriqsi oo ah qaabkii uu u dhintay George Floyd kadib markuu nin cadaan ah jilibka qoorta kaga hayay waqtiga inta leeg waa inaan dhammaanteen ayay yiraahdeen daawanaa waxa ka socda Washington DC sababtoo ah ma rabno in ayay yiraahdeen dalka ay ka dhacdo kale oo fool xun haddaba waxa ay gashay arrintan ayaa la leeyahay maalintii 12aad oo dalka Mareykanka ka socdaan mudaharaadyo oo aan kala go'ayn taasoo ay dadku ku cabirayaan dhacdadii foosho xumeed ee loo geystay ninkii madoobaa haddaba dilkii loo geystay ninkii madoobaa ee George Floyd ayaa waxaad moodaa dunida oo dhan inay ka dhigayaan dibadbaxyo dalka Spain ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee halkaasi ku taala horteeda isa soo dhoobay dad aad u fara badan oo boorar wata iyaga oo ku muujinayaan amaba ay ka xun yihiin sidii loo dilay ninkii madoobaa ee George Floyd iyaga oo isa soo gadaamay amaba ku soo xoomay geedka weyn amaba ganjeelka weyn ee leedahay yuhuudda qasa degan ayaa waxa ay isugu soo baxeen dibadbaxyo xoogan oo ay kaga soo horjeedaan dowladooda iyaga oo sitay boorar ay ku qoran tahay ma rabno inaanu aragno dad reer Falastiin oo dhimanaya maalin kasta waxaad moodaa in xukuumadda Netanyahu ay ku soo badanayaan mucaaradka mudaharayadan oo maalmo isxiga ka socday Gaza iyo Tel Aviv ayaa waxa ay muujinayaan sida ay shacabka amaba dadka reer Israa'iil ay u diidan yihiin inuu sii socdo dagaalka ay yuhuuddu ku hayso dadka reer Falastiin waxaa maalinnimadii shalay oo Sabti ahayd ku geeriyooday isbitaal ku yaala Falastiin madaxii jabhadda Islaamiga ee Jihaad Abdallah oo ahaa 62 jir madaxii hore ee dhaqdhaqaaqa jihaadka reer Falastiin ayaa Sabtidii ku dhintay isbitaal ku yaala halkaasi kooxda ayaa sheegtay in Ramadaan Abdallah oo ahaa 62 jir uu u geeriyooday xanuun kadib isagoo yaalay muddo isbitaal halkaasi ku yaala madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa war-saxaafadeed uu siiyay warbaahinta laga leeyahay Falastiin ee Waafa ku sheegay in ay lumiyeen halyay qaran haddaba Salah wuxuu ku dhashay Gaza 1958 isaga oo hoggaanka qabtay 1995 kadib markii uu dhintay Faadi Shaqaaqi maamulka dalkaasi Mareykanka ayaa Abdallah waxa ay ku dareen liiska argagixisada 2003 Hindiya iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyay inay ku xalliyaan muranka ku saabsan xuduudda ay wadaagaan ee gobolka Ladakh iyada oo loo marayo wadahadal maalin kadib wadahadallo heer military ah oo ay yeesheen labada diris wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay maalintii Axadda ku sheegtay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in si nabadgelyo ah loo xalliyo iyadoo war-saxaafadeed lagu sheegay in sanadkan ay xusayaan labada dhinacba sanad guuradii 7aad ee ka soo wareegtay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal labada dhinac waxa ay sii wadi doonaan
wada sheegeen inay xiriirka diblomaasiyadeed ay sii adkeyn doonaan. wafdi uu hogaaminayo Lieutenant General Henton Sin oo ah taliyaha guud ee guutada 14aad ee fadhigiisu yahay magaalada Leh ayaa kulan saacado qaatay la yeeshay wafdi Shiinees ah uu hogaaminayo Major General Liu Lin oo ah taliyaha ciidamada militariga ee koonfurta Shinshin isagoo jooga magaalada Moldo ee dhinaca Shiinaha ku taal ee loo yaqaan Line of Actual Control. waxaa khadka dib u qeexida ka socda dhulka Hindiya gacanta ku hayso iyo dhulka Shiinaha ay gacanta ku hayaan. tani waxay ahayd shirkii ugu horeeyay ee labada dhinac yeeshaan.